وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا معلمك وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا معلمك واجي بريبا او بحلقا ورابشو واجي بريبا او بحلقا ورابشو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجب كيس وحنبار واجب كيسا وهسنينو وابن مينو وروريقي مينو ويعن مينو وهسنينو وابن مينو وروريقي مينو ويعن مينو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرنامج كيني أنو كلا سعوني تيفيا قرن كيدا عدا راديو هرقيسة ومع الخضر هارون موسى أو إذا اللي برنامج كسور دوهذا برنامج خاصة لغو تلقارد إنو كيف عيرستان يقو بروهو دا جوغا waxay nu ku jirnaa nindhiga doonaa sabajagii mathka class waa form 2 chapterkii 6 weeyay lessonkiisii 3 waxaynu hore soo qaadanay lesson 1 iyo lesson 2 oo aynu lesson 1 ku soo baranay distance between 2 points fogaanta u dhaxaysa laba barood iyo qaabka loo soo saarayo taasaynu ku baranay markaynu number line ka haysanana inaynu hab isticmaalan absolute value la yiraahdo markaynu haysano laba pointina aynu isticmaalayno waxa loo yaqaan distance formula waxa kale oo casharka koowaad ku soo qaadanay casharkii labaad midpoint-ga oo isna nidhi waa barbartameed waa barta laba islagu qaybisa laba barood oo lagu siiyay waxa kale oo soo qaadanay hore soo baranay gradient ama slope-ka waa tirada xariiqda oo aynu tusaale ka soo qaadanay inta badan slope-kaasi ama gradient-ka waxaynu ku helaynay oo waxaynu isticmaalayno isbedelka y-da marka loo eego ama loo qaybsho isbedelka x-ka maanta hadda la ka dhigo casharkeena saddexaad wuxuu noqon doonaa isdalka inooga muuqataba waa equation of a straight line waa isleegta xariiq toosan hadaba casharkeenan equation of a straight line hadafkaynu uga leenahay waxa weeye markuu casharku arday u dhammaado inaad fahmi karto isla markaana ay tahay muhiim inaad ogaato inaad soo saari karto equationka marka lagu siiyo point iyo slope iyo marka lagu siiyo laba point muhiimadeena aynu ka leenahay casharku markuu dhamaado waa in ardaygu inta fahmo weey laba hadaba u qaybin doonaa taa hore eeda waxa weeye waa find the equation of a straight line given a point and slope aynu soo saarno equationka xariiq toosan kaas aynu haysano point iyo slope markaynu haysano ayaynu soo saarana equationka xariiqda toosan marka labaadna bidana waxaynu eegi doonaa inagoo haysana laba point weey hadaba example koodan ku horeyno waa find soo saar ama xisaabi an equation of a line through the point 1,3 and with the slope is -2 or -2 waxaynu haysanaa pointigeeni waa 1,3 slope-keenina waa 2 hadaba equation-ka markaynu sameynayno marka waa su'aasha la socotaay waa marka haysato point iyo slope qaabka equation-ka loo sameynayo hadaba ardaynu dhaahno waxaan ku qoray solution-keena aynu ku soo saarno equation-ka aan dib u soo qoro point-ga iyo slope-ka labadaba point-ga aan haystaa waxa weeyaan waa 1,3 slope-kayga ama m oo loo qaato m-na waxay noqonaysaa waa -2 waxaynu soo aragnay cashar ku soo aragnay markaynu slope sheegayno waxaan u qaadanaynaa m ama gradient waa isku mid weey hadaba halka markaynu haysano ka waxaynu la bixi doonaa x1 kana waa y1 gifankeena waxaan haysanaa x1 inay noo la mid tahay 1 y1 inay noo la mid tahay 3 sidoo kale m-tina inay noo la mid tahay maxay -2 halka hadaba markaynu joogno waxaynu soo saaray equation-ka markaan equation-ka soo saarayno waxaynu isticmaalanaa equation-ka loo yaqaano point slope form ama oo ah y equal m bracket x minus x1
plus y1 equationka waxaa loo yaqaanaa point slope form waana equationka lagu sameeyo waana tala isticmaal marka equation la sameynayo. haddaba halkaa markaanu joogno arday waxaad ogaataa 3 meelood baynu bedelaynaa. laba ka mid la bedeli maayo, labada aan la bedelayna waa y-dan iyo x-kan aanay 1 kula socon oo kuwa iyaga equationka ka dhex muuqdo mar walba. waxaynu bedeli doonaa slope-koonu m u qaadanayno x1 iyo y1 baynu bedeli. qiimayaashaynu ku bedelaynana waa kuwan x1 waa 1 y1 waa 3 m2 waa -2. y haddaba aan idhaahdo halkan waxaan ku bedelay negative 2 bracket baynu furi. x-ta hore waan iska dhigan waa x minus x-ta labaadna waxa weeyaan waa hal baan ku bedelay x-ta koowaad plus y1 waxaan u qaadanayaa 3. halkaa markaa ardaygu marayno waynu isweydiinaysaa u kala horeeyaan. halkaa bracketka waxay noogu xidhan x laga jaray 1 waxaana ka dambeeya plus 3. haddaba si aynu sameyno taa si fudud waxa leeno kan bracketka ka horeeyaynu labadaba ku dhufan x-na waynu ku dhufan 1kana waynu ku dhufani. marka y waxay inoola mid tahay markaynu -2 ku dhufan x waa -2x weeye. halkaa markaynu minus baynu ku dhufan plus bay noo noqon laba hal ku dhufano waa 2 plus 3 bay noo sii yaalay plus 3 ba inoo sii yaalay. halkaa markaynu joogno waxaynu isla fahminaa markaa labada number ee dambe aynu isu geyniyo 2 plus 3 baynu odhani. marka equation-keeni wuxuu noqon doonaa -2x plus 5 -2x plus 5. equation-keeni markaa example-ka hore intaasoo inoo noqonaya waa equal -2x plus 5. kaasi waa tusaalaheena koowaad. tusaalaheena labaad example 2 isna waxayna lana weydiinayay example 2 na waxaa lana weydiinayaa find the equation of a line through the point -1,5 and slope equal 3 divided by 2. example-kana waxaa lanaga rabaa un isla equation baa lanaga doonayaa. kaa horena waxaynu ku soo qaadanay equation-kii point baa lana siiyey iyo slope-kii. kana waxaa lana siiyey un isaga laftiisana point iyo slope-kii laakiin kan wuxuu kaga duwan yahay slope-kaynu haysanaa laba tiro isku qabsan ama fraction. halkaynu marka hore haysanay number aynu haysan muxuu ahaa aan fraction ahayn. imikana waxaynu sameynay un solution baynu ka bilaabi halkaa waxaynu soo qaadanay pointigeennii haddaynu marka la soo qorno waa -1 iyo 5 slope-keennina wuxuu noqonayaa m-teennina waxay inoo leeg tahay 3 divided by 2 halkaa haddaba markaynu marana waxaynu samaynay sidii tii hore halkan x1 baynu qaadani halkana y1 baynu ka dhigan m-tiina waxay noo tahay 3 divided by 2. halkaa markaynu marano equation samaynayno tan horean isticmaali oo ahayd point slope form. so y equal m bracket x baalna ka jari doonaa x1 waxaynu u geyni y1. halkaa markaynu joogno sidaynu taa horeba uga shaqaynay waxaynu bedeli x1 y1 iyo m-taynu bedeli. x-ta iyo y-da aanay 1 iyo wax ku qornayn iyago number la socon sidooda iska ahaanayaan iyagu. so y equal m-tii waxaan ku bedeli doonaa 3 divided by 2 qaws baan furi. halkaa x baa inoo taal minus-kaasi waa kii formulada. halkana x-tayna koowaad waxay wadataa minus. haddaba ardaygu ka taxadir markaad aragto negative meesha kuu yaala minus meesha kuu yaala number kalena uu minus wato saameyn bay isku yeelan doonaan. sidaa daraaddeed bracket yar baan furi oo aan ku qori doono -1 bracketkii markaa soo xidh. maxaa ka dambeeyey y-dii loo geyn doona waxaan u geyn doona markaa 5 baan u qaadan. halkaa markaynu marana intaynaan numberka ka horeeyaba ku dhufan
labadan tire ee gudaha ku jira minuskan labada minus ku dhufani si ay ugu soo baxdo hal calaamad oo kaliya taa waayo waxa ay leeg tahay 3 divided by 2 banaanka yaala qaws baad furi egas balaas 1 qawskaad xidhi waxaad u geeyni 5 halka markaynu marana hadaba waxaynu haysanaa y equal 3 divided by 2 bracket egas plus 1 bracketka soo xidh plus 5 taa daba u dhameystirno waxaynu sameeyni markaa saynu dhameystirno equation halkan marka la igu soo qor waxaan haystaa y-du waxay la mid tahay 3 divided by 2 qaws baa furan egas plus 1 plus 5 halkan maanta waxaad arkaysaa in hooseeyo ay leedahay oo ah 2 si aan hooseeyaha daba 2ga meesha uga saaro 2gaasaan dhan walba ku dhufani y-daa baan ku dhufan halkaa baan ku dhufan kaana waan ku dhufan sida ugu fudud waa sidaa halkaa marka waxaynu ku dhufan doonaa 2 halkaana waxaan ku dhufani 2 halkaana waxaan ku dhufani 2 halkaa markaynu joogno 2ga y-daynu ku dhufani waxay noo soo bixi doona 2y equal halkan dhexe markaan joogo 2gan iyo kanaan isla saari waxaan u dan lahaana maxay ahayd inaan hooseeyaha iska saaro waxa halkan markaa igu hadhay 3 lagu dhuftay egas plus 1 plus labadana isku dhufo 2 5 ku dhufo halkaasina waa 10 kol haddaan hooseeyay iska saaray way fududahay 3gan ka horeeya bracketkan labada gudaha ku jira ba ku dhufanaya marka waxaan leeyahay 2y equal 3 times x waa 3x 3 times 1 waa 3 plus 10 inoo yaalay halkaa markaynu marano labada nambar ee dambe aynu isu geyni 2y equal 3x plus 13 13 bay noo soo hadhay marka halkaa markaynu marayno 2gan ka horeeya y-da dhan walba waan u qaybin karaa oo markaan raba inay noqoto point slope interceptive formkii weeyi haddaan xaggan 2 qaybsho halkana 2 baan u qaybin halkana 2 baan u qaybin labadanaan meesha ka saari waxa ii soo hadhay y equal halkaasi waa 3x divided by 2 plus 13 divided by 2 waxaan samayn karaa inaan ka hoose ka dhaxaysiyo idhaahdo waa 3x plus 13 divided by 2 halkaasina waxay noogu dhammaaday equationka labaad ansartiisii oo ii soo baxday y equal 3x plus 13 divided by 2 waa example-ka labaad wey example 3 baynu ku dari example 3 baynu ku dari doonaa example 3 example 3 waxaa layna siiyey calculate example 3 calculate equation of a line given slope oo m aan qaadan doono and y intercept and y intercept intaasaa lana siiyey intercept waxaynu isagana b u qaadan doono soo mtayna waxaa layna siiyey 3 b-na waxaa layna siiyey -5 example-kana labadaa horeba uu ka duwan yahay wuxuu kaga duwan yahay kuwa hore mar waxaa lana siinayey pointiga lana siiyey iyo waxaa lana siiyey slopekii oo mar isagoo number cadi mar isagoo isku qaybsan kan laakiin wuxuu kaga duwan yahay waxaa lana siiyey slopekii iyo point loo yaqaano y intercept markaynu leenahay y interceptigu waa meesha line-ku y-da ka jaraya weey ayaa loo yaqaanaa y intercept tusaale ahaan imika graafkii baan imika saa u sawiray halkaa waxaan ku haystaa waa x kana waa y imika line-kaa iyo line-kaasi way kala duwan yihiin meesha ay y-da ka jareen way kala duwan yihiin halkaa waxaa dhici karta inuu 1 ku beegan yahay kana uu 3 ku beegan yahay minus
marka y interceptigu waa meesha line-ku ka jarayo qiimaha y-da oo ah qiimaha loo qaadan doono y-da ayaa loo yaqaanaa y intercept markaynu y intercept sheegaynana egasta 0 baynu u qaadan haddii lagu dhahdo egas interceptina y-daynu 0 u qaadan doonaa haddaba halkaa markaynu marayno aan solution idhaahdo mtni waynu haysanaa waayo y intercept markaynu leenahay egas baa 0 inoo ah markaynu leenahay y intercept egas equal 0 egas equal 0 maadaama egas 0 inoo tahayna y-diina aynu haysano qiimaheegiina waxaynu qoran doonaa pointigii ahaa egas kooma y mtina waynu haysanaa sidaa daraaddeed pointiga wuxuu noqon doonaa 0, -5 mtina maxaynu haysanaa 3 halkaa waxa markaaynu ka fahamnay in pointiga la soo baxnay 0, -5 yahay oo 0 wuxuu ka yimid ardayow wuxuu ka yimiday markaynu y intercept leenahay egas qiimaheega 0 loo qaadan haddaad garaafka u fiirsato halkaa imika qiimaha y-da egasta waa 0 y-duna waa -3 saa daraaddeed hadduu laynka taagan jaro egas qiimaheega 0 loo qaata hadduu ka jiifo jarana y-da qiimaheega 0 loo qaata saa daraaddeed marka waxaynu haysanaa slopekeennana waa intan pointigeenna waa 0, -5 mtna waa 3 halkaa markaynu marayno haddaba si fudud baynu equationkii u soo saari karaynaa waxaynu isticmaali equationkaan isticmaalaynaa how y equal m bracket x minus x1 plus y1 halkana saynu horeba baranay markastoo arato pointi meel kuu yaala ka hore waxaa loo qaadanaya x1 ka dambana y1 baynu u qaadanay mtnina waynu haysanaa saa daraaddeed y waxaynu odhan doonaa markaa halkan 3 ii dhig qows baynu furi egastaa hore waan iska dhigan doonaa waa egas laga jaray 0 qowska xidh maxaan samaynaya marka y-da maxaan ku bedelayaa -5 baan ku bedelay halkaa markaynu marayno waxaan samayn doonaa y equal 3 egas laga jaray 0 halka waxaan qowska ugu xidhay waxaynu rabaa inaad fahamto haddii calaamadda positive ka horeysa inaanay minuska wax ka bedelin haddii laakiin minus lagu dhufto inay isbedelay saa daraaddeed haddaan balas ku dhufto minus intan -5 unbaa iga soo baxay halkaa markaynu marano 3gan barakatka ka horeeya labada qowska ku jiraba ku dhufo egastana ku dhufo 0gana ku dhufo soo maxaa tiraa markaa 3 times egas waa 3 egas 3 times 0na waa 0 -5 way labadaba ku dhici doona 3gaas y equal waxay noo leeg tahay 3 egas waxaan labada kala jarana waa -5 halkaana waa ansartii inoo soo baxday ahayd maxay example 3 example 3na maxaynu ku aragnay inagoo la ina siiye maxay y interceptigii iyo slopekii la ina siiye marka intaa lagu siiyo eed maqasho y intercepti qiimihi egaskaad 0 u qaadanaysa automatically saadar pointiga markaa 0, -5 uu noqon mtna waynu haysanaa saddexdaa example waxaynu ku fahamnay inaad equation samayn karto marka lagu siiyo pointi iyo slopekii waxaynu bilaabi qaybta b-da ama qaybta labaad oo ah marka la ina siiyo laba pointi lagu siiyo equationka qaabkee loo soo saaraya b baynu bilaabi oo ah qaybta kana waxa weeyaan waa finding soo saarista the equation of a line given 2 points. qaybtan labaad saynu bilowgiiba ku sheegnay markaynu equation raadinayno waxaa suurtagala in lagu dhaahdo soo saar equationka lagu siiyo point iyo slopeka qaybta labaadna waxaynu ku baran doonaa soo saarida equationka straight linekaasi leeyahay markaynu haysano 2 points maxaynu samaynayna example 1 aan qaadana isagana example 1 example kaasi wuxuu inaga doonayaa
waxaa la yidhi calculate xisaabi ama soo saar an equation selecta of the line that passes through the 2 points. 2 points. labadii pointi maxay kala yihiin 2,5 and 4, minus 3. 4, minus 3. example-keenan u horeeya ee markayna la siiyo soo saaridda equation-ka marka lagu siiyo 2 pointi waxaan calculate an equation of a line that pass through the 2 points 2,5 iyo 4, minus 3. markaynu 2 pointi noocaas haysano equation-ka qaabkee loo soo saaraya labadii pointi aan dib u soo qoro ka hore waxa weeyaan 2,5 and 4, minus 3. halkan kan egas 1 baynu ula bixini kana waa y1 kana waa egas 2 kana waa y2. markaad arday aragto in 2 pointi lagu siiyey oo equation laga doonayo equation-na waxa la sameyn karaa mar walba inaad haysato pointi iyo slope-kii marka halka waxa ka maqan arkaysaan slope meeshii kuma haysano laakiin 2 pointi waa la nasiiyay saadaradeed marka hore waxaynu la soo bixi doonaa slope-ka ama gradient-ka inagoo ka faa'iideysanayna formulada aynu soo qaadanay casharkii hore oo ahaa in gradient-ka lagu soo saarayo change in y divided by change in x. haddaba m baan horta Ferris calculator la dhaahdo Ferris calculate slope horta slope-ka la soo bax slope-kiina m baynu qaadan waxa lagu helaa y2 laga jaray y1 divided by x2 laga jaray x1 qiimayaashiina waanu ku kala qoranay y2 maxaynu haysanaa minus 3 baynu haysanaa minuskii formulada u dhaxeeyay y1 waa maxay waa 5 loo qaybiyay maxaynu haysanaa x2 waa 4 laga jaray x1 waxa weeyaan waa 2 m taas waxay noo la mid tahay labada sarweys ku tagayaan waa minus 8 labadana waad kala goyni oo waa 2 isku qaybi marka waa minus 4 marka mt maxaynu soo helay 4 baynu soo helay haddaba kol haddaynu slope-kii soo helay halkana 2 pointi aynu ku haysano markaad equation samaynayso eed aragto slope-kii aad la soo baxdo iyo 2 pointi su-aasha haddaba waxa weeye ardayow sidii 2 pointi keebaad qaadanaysa labadaba ma la wada qaadanaya mise mid baa la qaadanaya waxaynu kaga jawaabi markaan slope-ka soo helo in equation samaynaya 2 pointi ka doontaa iska qaadan karta way isku jawaabun labaduba ama kanaad qaadan ama kanaad qaadan waa isku mid laakiin labadaba ma wada qaadan kartid saadaraadii markaa equation-kii baynu samayn equation-keeni marka waxaan isticmaali doonaa second waxaynu qori doonaa equation-ka waxaynu haysanaa markaa pointiga ka horeba haddaan iska qaadano oo ah 2,5 mt-na waxaanu haysanaa waa minus 4 kan waa x1 kana waa y1 mt-na waan haysanaa marka waxaanu samaynaya equation-kii theorem isticmaali doonaa y equal m bracket x laga jaray x1 loo geeyey y1 so y equal y-da waxay noola mid tahay mt-na waa maxay waa minus 4 bracket x laga jaray x-ta koowaadna waa maxay markaa waa 2 plus y-da koowaadna waa 5 halkaa saynu horeba usoo baranay markaa minus 4 kana labadaba ku dhufan x-na waa ku dhufan 2na waa ku dhufan so y equal waa minus 4x markaynu kaa ku dhufto labada minus plus bay noqonayaan 4 times 2na waa 8 maxay noo sii yaalay 5 bay noo geyn doonaa y-da waxay noo leegtahay markaa 4x
labaad dama isku dar waa 13 wey haddii aad arday u qaadato pointiga labaad oo ah 4 - 3 iyo slope-ka isku qaatana equation saa uma soo bixi doona marka equation saas oo kala ayaa soo bixi doona inta waxay nagu dhamaaday cashirkeeni saddexaad intaynu cashir ku xigay kulma doono oo macallin khadar ilaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay waanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay waanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weewean mayno وهسني